waxaa maalintii shanaad xiran Safiya Aadan Roble oo ciidanka booliisku ka soo qabteen gurigeeda maalintii ciidda ka horeysay. haweeneydan ayaa maalmo ka hor warbaahinta ka hadashay iyadoo wajiga u niqaaman yahay magaceedna bedeshay. waxa ay sheegtay in Mareykanka iyo Israa'iil ay faraha kala baxaan arrimaha Iiraan. qoyskeeda ayaa BBC-da u sheegay in gabadhani maskaxda ka xanuunsanaysay horena loo geeyay goobaha caafimaadka maskaxda. wariyaha BBC-da magaalada Hargeysa Sidiiq Maxamed Burmad ayaa Safiya walaalkeed oo la yiraahdo Axmed Aadan Roble weydiiyay sababta loo xiray walaashii. xariga walaalo wuxuu dhacay si axadda 7 Ramadaan meelaha ay ka hadashay arrinta Iiraan iyo u dhaxaysa Mareykanka si guud bay uga hadashay dabadeedna maalintii ku xigtay ra'iisul bariyo kala soo galisay Isniinta ayaa laba xaajidood oo ciidanka booliiska ka wareegan gurigeeda saasaana lagu xiray markan hore waxay ka hadashay nimaanaan ogeyn markan dambe baan ogaanay la xiray inta caafimaad ahaan dhowr jeer baanu geynay oo hore yara xanuunsatay barna gaboosaan u geynay barna cilaajka laakiin qof ahaan qof guriga dhaqanayaba balse qofta xaaladiisa caafimaad kulliiba aanu deganayn oo dhowr jeer xanuunsadayna way waxaa qurux badnayd laamaha ammaanku marka Axmedow balintayna laamaha ammaanka gaarin waxaad iiga warantaa iyadu ma gabadh reer leh baa haatan waqtigan iyo caruur bal waa gabadh reer leh oo caruur leh oo oday leh odaygeedii uu joogaa cimradu hadda ku maqay laakiin reer iyo caruur bay leedahay waa gabadh reerkeedii dhaqatay marka xanuunka laga yimaado hadalkeeda waa daawatay Iiraan iyo waxay ka hadashay iyo Mareykanka xiriirka xumaaday ee ka dhaxeeya arinta adigu sidoo aragtaa wallahi raayul caam bayna tukamintooda madaxda dawladda ka tirsanna ma yahayn xil Soomaaliland kuma hadleen fikirkeeda shakhsiga ah bay hadlays runtii anigu waxaan u arkaa inaan xataa caburin oo kala oo dadku cilaaqaadka dunida arintii maalmaha taagnaa la hadalhay ayaa hay'adda shirka Sacuudiga inay ka hadlaysay maalinta ka socday qof ahaan qof islaam oo laga yaabo in dareenka islaamnimadu sii jiitay oo jacaylkaasi oo laga yaabo ay uga hadlaysay هذه الدنيا تواحد كدعية أنا لا استيقظ من هذا ولد معلوم البول لقى هذا لكن وده كان واحد مودين بعض يشكي يوحي نقفر بدي ولا الشكية بهدو قف هذا حل اللي محو مركز واحد نقول سابين عدي هذا شباب مركز لحره مركز إذن كود دولة ده أما عيدا كمان لحر لأن أنت ولا على الحري وأنا لحر نار تتواحد كوبا أنت معلمي هي هولي جاي فسح ولا قلت شري معلمي هي يدعي كوبا أنت إلا يمكن أنت فسح ولا سكت شرا لكن غار بدنا لحر إنه يكون شران ما ويديسن sababta loo xiray walaasha waan weydiinay arintaas bay noo sheegeen in arinta Iiraan ay ka hadashay loo xiray bay noo sheegeen marka waxaan ku qanacnana way noqon weyday ma jeceli inaan dhaleecayo laamaha ammaanka shaqadoodii bay haystaan haddana se waxaan halkan uga diraya ama aanu fikir ahaan ama talo ahaan u siinaya balde in ay ka fiirsadaan taana waxayna qofkii banaanka jooga la hubin kara horta xaaladiisa hadii qofkii oo aan xaaladiisa la hubin ama caafimaadkiisa sax ahayn la xiro marka ma waxay ku sheegeen in hadalkeedan loo xiray mise shaki in ida kala ku xirantay sida urur argagixisa ay ma dareen caynkaas ciidanku qaban ma waxay noo sheegeen in cadeeyeen hadalkeeda inaanu munaasib ahayn bay ilaahdeen hadalka uu ku hadlay tawaanagu waanu garaweyna sababtaan munaasib u ahay runtii qof ku xiray waad garan kartaayo lama doodaysid hadiya jeer wuxuu baday bal sidii qofka loo soo deeyay bad kala macaamilaysa laakiin iyagu siday noo sheegeen waxay ahayd in hadalka Iiraan loo xiray oo aad wax la iska weydiiyay arrinka maxaa laga yeelayaa bay yiraahdeen ilaa idinku waxaad ugu tagteen in ilantiinii la idin soo daayo maxaad jawaab ka hesheen baaritaan baan sameeynaa bay leeyihiin baaritaankiina way ku jiraan ilaa imikana wax cadoon anagu inantii waanu garanaynaa xataa jaarkeeda qof u wareegta ma ahayn qof gurigeeda dhaaftaba ma ahayn baaritaanka xaq weyn inay sameeyaan laakiin qofka anigu waxaan ku marka hore leena sharciba ma qabta horta qofka hadii mar uu xanuunsaday marka anigu waxaan leena sharciyada lagu soo tabaalo dareenka shakigana qofka inta la xirin hal ogaado baaritaanka ta sameeyaan laamaha amniga ha ogaadaan ka hor inta aan xirin qofka hagaagkaasina waxa uu ahaa Axmed Aadan Roble oo la dhashay Safiya Aadan Roble oo maalintii shanaad ee Hargeysa ugu xiran hadallo ay sheegtay oo ka dhan ah Mareykanka iyo Israa'iil wuxuuna u waramayay wariyaha BBC-da magaalada Hargeysa Sidiiq Maxamed Burmad
Naziima Maxamed Nuur oo ka faaloota arrimaha bariga dhexe iyo siyaasadda muddana ku noolayd wadamada Carabta oo maanta la hadashay Ariel TV ayaa ka hadashay xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex taagan wadamada Iiraan iyo Mareykanka waxaanay xustay haddii dagaal ka dhex qarxo labadaasi dal uu noqon doono dagaalkii saddexaad ee dunida waxaanay madaxda Carabta ee ku shirsan wadanka Sacuudiga u soo jeedisay inay arrintaasi meel uga soo wada jeestaan. dowladda Mareykanka waxaan u sheegayaa haddii ay nabad gelin weydo walaalaha Iiraan in ay la kulmi doonaan ribaaxa kulul waxaan u cadeynayaa in muslimiinta Afrika oo dhami ay taageersan yihiin ama ay difaacayaanba jamhuuriyadda islaamka ah ee Iiraan boqolkiiba boqol waxaan difaacaynaa muslimiinta Afrika haddaan nahay jamhuuriyadda Iiraan. Mareykanka waxaan u sheegayaa isagoo cunaqabatayn Iiraan ku haya sharci darro ah inuu faraha kala baxo si degdeg ah sida ugu dhaqsaha badan. waxaan u sheegayaa madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Israa'iil si degdeg ah haddaydan faraha ugala bixin waxaad faragelintaad ku haysaan jamhuuriyadda Iiraan oo idinka sheekayn doontaan waxaydan kala kulmi doontaan muslimiinta waxaan idin cajabin. madaxweynaha Mareykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda Mike Pompeo waxaan u sheegayaa la taliyihiisa John Bolton faraha kala baxmaan ku si degdeg ah Iiraan si degdeg ah faraha kala baxa hadii kale way idinka sheekayn doontaan waxa halka ka dhaca haddaad qashar ku tuurtana waxaan ku sheegayaa in halka ka bilaabmi doono dagaalkii saddexaad adduunka cidda ugu hordhimataana ay noqon doonaan Mareykanka iyo Israa'iil. waxaan u sheegayaa dawladda Sacuudiga mar walba walaalayaal caqligiina xaqu ka dhacay maalin walba ma waxa la idinku diri doonaa dawlad islaama shalay ayay ahayd markii qadar la idinku diray 2017 shalay ayay ahayd may fogeyn maantana Sacuud waxay doonayaan Mareykanka iyo Israa'iilna idinku diraan walaalihiina Iiraan. waxaan idin sheegayaa Iiraan boqolkiiba boqol way mahadsan tahay waxa laaliye waxay sameysay iyo waxay cid faragelin ku haysan ma jirto. waxaan idin sheegayaa inaad iska daysaan kolba shirarka aad qabsanaysaan ee ugu yeerisaan madaxda muslimiinta shirarkaas oo dhamaanba uu ka dambeeyo madaxweynaha Mareykanka. waxaan u sheegayaa boqorka Salmaan adeer waxaan ku leeyahay nin weyn ayaa tahay ee iska ilaali ninka Mareykanka haysta ee ku soo diraya ee maalin walba ta kugu diraya walaalaha. xiriirka Sacuudiga iyo Iiraan bargiisha waxay ahayn laba dal oo aad yani xiriir u leh ama mesela isbahaysi oo kala dhaxay Mareykanka marka labada awood oo la isku haleyn karo ayuu arkay wadamada galbeedka ay arkayeen markii la fiirsho waqtigaas waxa jiray dagaalkii qabooba kadib markii uu dhacay revolutionkii islaamiga oo ka dhacay 80 horaadkeedii Iiraan xiriirkaas wax badan ayaa isbedelay. Sacuudiga iyo wadamada khaliijka oo ogsoonahay inay yihiin wadamo mesela qonyar socda sida dadka qaar yiraahdaan ama wadamo yani muxaafidiin ah waxay boqortooyina ah runtii markii la fiirsho waxay u arkeen wax baqdin xoog leh ku ah runtii markastaba revolution kasta wuxuu keenaa baqdin xukunka khaliijka ka jiray markaas oo boqortooyo iyo dhaxaltooyo iyo ahaa maakino xukun aad xukun qoys oo aan xukun shacbiyeed marna aan ahayn waxoogaa baqdina gashay runtii ma aysan jeclaysan revolutionkaas aaday macnaha ay uga xumaayeen in revolutionkaas uu ku faafo bariga dhexe oo dhan. dalka Iiraan oo kale dabcan waxa la leeyahay waxay aad iyo aad taageero uga helayaan Lebanon oo kale Ciraaq oo hadda u muuqata dal shiica siyaasad ahaan Syria oo kale marka la eego dalka Sacuudi Carabiya dalal fara badan u muujiyay taageero siyaasadeed ma la dhigi karaa Sacuudigu walwal xoog badan ayuu qabaa oo ku saabsan in shiicadu ay doonayso inay awood iyo saameyn ku yeelato bariga dhexe sidaas daraadeedna Iiraan laftirkeedu ma sahlana oo maaragtay waxay isku dayaysaa sidii Sacuudiga ay siyaasad ahaan uga guuleysan lahayd. marka u fiirada dhinaca fikirka madhabiga Sacuudiga iyo Iiraan labadaba midna shiica uu sheegay midna wuxuu sheegay fikir oo sunni ah oo khaas ah mesela midkan oo waxaan ka hadlaa salafiga loo yaqaan labadaas fikradood waxaad moodaa in xagga militariga looga dheereeyay Sacuudiga iyo wadamada khaliijka waayo
already markaad fiirido lubnaan oo kale xisbullah ayaa jooga oo dowladda lubnaan ka xoog badan oo dowlado badan ba ka xoog badan sida dagaalkiisi markii la qiyaaso oo Israa'iil la galay laakiin arrinta waxay u muuqataa hadda sunni iyo shiica inay isu bedelayso sunniga 85% lagu tilmaamaa shiicada waa 15%. marka madhabka salafiga meeshaas oo kuma baaba'ayo haddii ay siyaasadda iyo xiisadu weli ka dhex taagnaato sunni iyo shiica markaa fiirido dadka shiicada ama madaxda shiicada oo Iiraan joogta iyo ama Suuriya naftirkeeda waxay leeyihiin fakarka midalan hadda xaq jirka oo ama Daacish ama midka kale oo al-Qaacida oo kale ururada xaq jirka kama marna in ay lug leeyihiin ama ay howlgeliyeen istikhbaaraadka wadamada khaliijka sida Sacuudiga gaar ahaan iyo wadamada khaliijka oo dhan isku dar hakala reebin fakarkaas iyaga naftirkooda waxay u sameystaan inay uga hortagaan midkan shiiciga laakiin markaad fiirido sida ay u abaabulnaayeen nimanka shiicada markaad Lubnaan fiirido Xasan Nasrallah aad u masjid ugu ahaa ama nin hurdada u diiday wadamada khaliijka oo raaxada badan raaxada ku nool oo hantida iyo xoolaha haysta tan labaad Yemen waxay ku noqotay faajica waxa la Sacuudiga waxay la dagaalamayeen gaar ahaan Allah u naxariistay boqorkii Cabdallah iyo dadkan kale Sunniyiinta oo ka wada waxa loo yaqaano Rabiic al-Arabi ama waqtigan oo lagu jiro mesela deerta ama maxalliya Arbeed oo dhalinyarada faraha badan oo revolutionka ka wada ama Tunis ama Masar ama Suuriya naftirkeeda ama maxalliya Liibiya oo Qadaafi ka qaado xukunka isbedeladan kale ay ku mashquulsanayeen